wanaagsan daawadayaal halkani waa telefishinka caalamiga ee deegaan channel tv oo aday channel ka daawataan bartaan ku leenahay youtube aaladaha social media ayaa iyagana naga heli kartaan daawadayaal barnaamijkeena faaqidaada wargeyska waxaynu ku soo qaadan doonaa maanta isbedeladii ka dhacay Itoobiya ma yihiin kuwa haysta wadadii loogu talagalay khaasatan gobolka Soomaalida ee deegaanka Soomaalida Itoobiya maanta way taariikhdu tahay 3 bisha 9 ee 2018 daawadayaal kulanti wanaagsan mar kale ku soo dhawaada barnaamijkeena faaqidaada wargeyska daawadayaal barnaamijkeena hore ugu sii soconay waxaan sideen loo wada socono wadanka Itoobiya waxa ka dhacay isbedelo waaweyn oo aan la filaynin sanad ka hor ama bilo ka hor inay dhici doonaan isbedeladaasi ayaa waxa ay saameeyeen dacal kasta oo wadamada dariska ah iyo waliba gudaha wadanka Itoobiya isbedeladii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu sameeyay kadib markii uu xukunka yimina waxay noqdeen kuwo aad loola yaabay waxaasoo isbedela ka qatanaa ama ka oomanaa waa dhibane uu ahaa xukunkii talada sii hayay wadankaasi deegaanka Soomaalida ee wadanka Itoobiya raacsan oo uu hogaaminayay madaxweynihii xabsiga loo taxaabay ee Cabdi Maxamuud Cumar daawadayaal haddaba sida aynu ka warqabno bishii hore horaanteedii ayaa waxaa dhacay isbedel ka yimi dadka deegaankaasi kadib markii ay kacdoon sameeyeen waliba kacdoonkaasi oo ay kaga soo horjeedeen madaxweynihii gacanta kululaa ee deegaankaasi inta badan gacanta ku hayay Cabdi Maxamuud Cumar dadka deegaanka Soomaalida Itoobiya ma ay dareemin xorriyad tan iyo waqtigii lagu daray wadanka Itoobiya waxaase toddobaadadii u dambeeyay gilgishay deegaankaasi waxaana sida ay la wada socono laga saaray meesha xukunkii gacanta adag ku xukumayay ee Cabdi Maxamuud Cumar hase yeeshee dadka deegaankaasi waxaa la leeyahay nasiib uma helin isbedelkoodii inay iyagu doortaan qofka ay rabaan hase yeeshee waxaa dhakada lagaga keenay madaxweyne cusub oo la yiraahdo Mustafa Cagjar iyo hogaamiye xisbigii loo dhiibay oo ka tirsan dawladda federaalka Itoobiya oo isagana la yiraahdo Ahmed Sheikh waxaase amaan yiraahdo Ahmed Shide waxaase meesha ka baxay baa la leeyahay inay dadku cabsi ka qabaan dawladda waxaana durba soo baxaya markii kadib madaxweynaha cusubi soo dhisay dawladdiisii dhaliile xoog leh oo ay dadka deegaankaasi ka soo jeeda u soo jeedinayaan waana taariikhda inta la xasuusto markii ugu horeysay ee dadka deegaankaasi ay bixiyaan aragti ka xora maamulka la dhisay ama ka madax bannaan oo mucaarad ku ah waxaase soo dhaweeyay madaxweynaha cusub haddaba su'aasha la isweydiinaya waxay tahay madaxweyne Mustafa Cagjar ma waxa uu dan u yahay dadka Soomaalida ah ee deegaankaasi mise waxa dantu ugu jirtaa dawladda Itoobiya Mustafa Cagjar waa nin aqoon-yahana waxaana dadka Soomaaliya ay sheegayaan labaduba inay dan ugu jirto Itoobiyana inay u baahan tahay nin aqoon-yahana oo xuquuqda aadamaha dhowra maanta Mustafa inuu u baahan yahay isaguna inuu deegaankiisa horumariyo deegaanka laftirkiisuna uu u baahan yahay siyaasad furfuran oo ka duwantii hore hase yeeshee dadka Soomaalida deegaankaasi ayaa waxa la leeyahay waxa aan laga badhaadhicin karin inay Itoobiyaan yihiin waxaana muddadan sheekadani soo jiidatay saxaafadda caalamka qaybo ka tirsan kadib markii la wareystay kumayaal qof oo dhibaato ay u geysteen maamulkii Cabdi Maxamed Cumar oo rag iyo dumar balaha dadkaasi oo intooda badan soo maray jeelasha ugu xunxun wadankaasi kana sheekeeyay sidii loo ciqaabi jiray oo mar walba inay dhibaato u diyaar yihiin tan iyo inta ay deegaankooda uga helayaan xorriyad madax bannaan haddaba waxa su'aasha weli saaran dawladda Mustafa Cagjar ay tahay Mustafa Cagjar ma noqon doonaa nin dadkaasi quluubtooda kasbada mise wuxuu noqon doonaa sidii Addis Ababa looga soo cimaamaday nin cimaamadaas uu iska sito oo